boqor ayaa ku soo laabtay madaxtooyadiisii habeen dhaxan ah. Iridda ayaa waxa uu kula kulmay nin ka mid ah ilaalada oo aad u da'weyn. Dhaxantaas dhacaysana isagu qabay oo kaliya dareeskiisa fudud. Inta uu boqorkii ku soo dhawaaday ninkii ilaaliyaha ahaa ayuu weydiiyey, miyaadan dhaxantan dareemayn? Ilaaliyihii ayaa ugu warceliyey, haa, waan dareemayaa qabowga, se ma haysto dhar aan dareeskaygan ahayn. Sidoo kale inaan u dulqaato waxaan ahaynna ma garanayo boqor. Boqorkii ayaa ninkii ilaaliyaha u ballan qaaday in marka uu madaxtooyada galo uu u soo dhiibi doono mid ka mid ah ilaaliyayaashiisa dhar uu ka wada dhaxanta. Isla markii uu boqorkii madaxtooyadii madaxa geliyeyba maankiisa arrinkii waa uu ka baxay ballanqaadka ahaa. Subaxnimadkiina waxaa la helay ninkii ilaaliyaha ahaa maydkiisa oo ay ag taallo warqad uu ku qoray, boqorow, habeen kasta qabowga samir iyo dulqaad ayaan ku xamilayay, balse ballankii aad iga qaaday ayaa iga xayuubiyey dharkii iyo awooddii aan isaga ilaalinayay ama isaga difaacayay dhaxanta.